fadlan haddaad naxariis leedahay muuqaalkan dhageyso daabana si fiican u fiirso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhammaan asxaabteyda meel walba joogtiin intaa idinka salaamaya. waa anigu Amal Queen. dhammaan muslimiinta meel walba joogan waan salaamay. qaasatan waxaan si qaas u sii salaamaya dadka hadda i daawanaya ani oo muuqaalkayga u soo gaaray. fadlan haddaad naxariis leedahay muuqaalkan dhageyso daabana si fiican u fiirso. haddaad naxariis leedahay oo tahay qof naxariis badan oo dabacsan oo qofka muslimka walaalkiisa xanuunka ahay oo la dareemayo haddaad tahay muuqaalkan daawalan ila dhageysta marka. xaawo cabdi cali waa hooyo Soomaaliyeed oo ku xanuunsan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. waxa ayna haysataa 9 caruur ah oo 7 kamid ah iyada dhashay halka 2 kalena uu dhalay walaalkeed oo geeriyooday. caruurtan oo dhammaantood agooma ah waxa aabi iyo hooyo u ah hooyo xaawo cabdi cali taas oo markii hore nolosha qoyska ku maareyn jirtay dhaqista dharka iyo shaqooyin yaryar oo maalinkaasi ay nolol maalmeedka caruurta ka raadin jirtay. balse hadda xaalka sidaasi waa ka bedelan yahay oo haddii saaka dabka la shido oo ay adag tahay in caawa ilmaha dhariga dhardhaarta loo saaro sababtoo ah waxaa bukaan sariirta saaran noqday qofkii indhaha u ahayd qoyska. diinteena islaamka si weyn ayay uga hadashay darajada uu leeyahay qofkii ilmo agoona kafaalo qaada waana midda maanta ay ugu qasbaysa inaan idinla wadaago xaalka ay ku sugan yihiin ilmahan yaryar ee agoonta ah isla markaana aanan haysan nolol iyo waxbarasho toona. sida ay ii sheegtay hooyo xaawo waxaa lagu sheegay 2 burood oo kaga yaala makaanka kuwaas oo haatan sababaya in mararka qaar uu xaalka ku adkaado isla markaana ay isku aragto dhiigbax iyo xaalado kale. hooyo xaawo ayaa si dareen leh uga codsatay dadka Soomaaliyeed meel waliba oo ay dunida ka joogaan in laga caawiyo daryeelida caruurteeda agoonta ah iyo sidii iyadoo loogu heli lahaa daryeel caafimaad si ay awood ugu yeelato in ay u xamaalato caruurteeda. waa xanuunsanahay ilmo agooman waa hayaa 3 wiil iyo 4 gabdhood. Kismaayo ku suganahay guriga hadda aan deganahay kiro ugu yahay iska meel bisha 500 oo Soomaaliya la iga qaaday. hadda anaga iska dhar iska soo dhaqdhaqay meel iska soo xamaalna ilmihii oo lacag sidii ku baxsanay jaarki iyo ilmaha dabkoodi. hadda aniga buraal igu sheelo bura makaanka dhaxiiskaaga taala 2 bur waxaan iska qalay malaha meeshaan iska dhig bixaa iska jiifaa maanta 19 iyo intaasaan u dhig bixaayo wax aan haysto silaa ogsoon mal wax walaal oo Kismaayo aqrab iyo ehl oo ii joogto wax siin haysana ma jirto. dadka walaalaha Soomaali islaamka wadana Maxamed waxaan ku codsanayaa say ii daaweyn lahaayeen oo meeshaan ay qaadan daryeel xumaa ay hayso oo dhibaataysanahay waxaan haysto mal ilmi agoomaha igu korfaasay igu korgaajeysiin wax hadda maanta gacanta aan ku haysto silaa ilo ogsoon ma jirto. wax maanta aan ku beerahay aan ku tashanahay ama wax ku qabtaan isdihayna meeshaan iima joogo waa iska dhibaataysanahay. xalay u dambeysay ilmihii diblooma shidan waxaan haysto malaha aniga saan xanuunsan hadana ordaa iska soo shaqeysana dhar iyo wax iska soo dhaqay hadda waxaan haysto malama socon kari indhaha imadoowaana waa wareera dhig laan ay haystaan oo dhig bixaya. inta islaamada Maxamed walaal leh wax igu tari karto inay isoo caawido wax igu tarto isbitaal xamar ay igeyso aan ku codsanaa oo isku soo qalburudaan fadaab ilmi ana oo xamaalna hadana iskaga xamaasho guri hadda bishaan 2 la igu leeyahay saamilin lacag ay qoran waxaan haysto mala baraka baxdo meel aan tagayo silaa og malaha meel aan haysto malaha. marka dadka walaalahay waxaan caawinaan rabaa inay caawiyaan oo wax ii qabtaan oo dhibka maanta aan ku jiro oo iyagana Ilaahay wax qaar qabo gacantooda soo galiyo anna dhibka iga bixiyaan Ilaahay dhib bixin kare. waxbarashada waxaa jirta 4 jirta waxbarasho 2 dugsi jirta 2 iskool jirta bishii lacagtoodana iska bixin 2 lacag la'aan ay igu dhigtaan 2 lacag ay igu dhiganayeen. hadda waxaan haysto malaha anna saana iska walaalkay waa iska dhibaataysan waa iska xanuunsan wax iqrabo maanta ii joogo wax siinayeen malaha. taqaatiirtu waxay u sheegan 2 bur inay igu taalo makaanka dhaxiisa ay ku taalo oo dhig baxan iyada ay keenayso intan aan lagu qali karin xamar loo qaaday haseedeen wax la igu qaaday maanta aan haystin malaha saana arigay oo saana iska daana iska xamaalnaa iska shaqaysanaa ijaarka iska bixinaa ilmaha dabkoodna u shidanay. hadda wax aan haysto hawa yaraatee ma jirto inta ilman ana Ilaahay ka soo aanay isugu hayaan maanta daani aan kacin dabkood waa dansiin waxay cunaayeen waxay cabaayeen malaha. okay maqalku ay dhageysteen filaaya runtii horta waan qeyraaday oo murugada rabbilka maray. haddaan maanta qof naxariis leh oo maanta maxaa ku rahday awoodo inuu wax bixiyo
walaal please caawi maamadaasito lambarkeedana meesha ku yaalaa magaceedana waa xaawo cabdi cali xaawo cabdi cali waayo magaceeda okay haddaad xataa $5 aad u dirto maxaan ku rahdaa waxay u noqonaysaa haddaad maanteeto aad maxaan ku rahdaa xataa $100 waxay u noqonaysaa maxaan dhihi jiray $100 waxay u noqonaysaa milyan haddaad awoodo walaal lacagta has dhihin hadda dadka maaragtay markaad hadda jidka marayso kale dad qof maxaan ku rahdaa ku dhahay ee caawiya jirso maahan dad masaakiima ah jirso maahan marka lagu dhaho ee caawi shishil hadduu baagaada ku jiro ama jaabkaada uu ku jiro ha isdhihin allah ilaah lacagtan way yartahay sadaqada mar walba kuu bannaan tahay meel unbay kuu buuxinaysaa mar walba ma fahantay haddaad qofkaasi $5 aad ku caawiso isaga lacag badana u noqonaysaa adigana sadaqay kuu noqonaysaa oo maxaan ku rahdaye waxaa lagu daraa miisaankaada aakhiro aa lagu daraa ma fahantay haddaad marka qof naxariis la aad tahay caawi please walaal qofkaasito haddii aadan awoodina mar walba u dacee in maxaan ku rahdaye oo ilaah subxaana watacaala caawiyo oo ilaah subxaana watacaala irsaaqad khayr qabto oo irida uga soo geliyo ma fahanteen okay waxaa jiro maamo hadda ka hor oo laga soo hadlo oo MK kasoo hadlayo maasha allah maamadaas waa la caawiyey waa la garab istaagay maasha allah waan ku farxay wallahi waana wax lagu farxo 100% waa wax lagu farxo maanta qof walaalkaaga adigoo dhibaataysan haddaad maanta aad qof codsato Soomaalida weyn meel walba joogta aad codsatid sidan maamadaas u caawisan maamadan kale maanta aad u caawin kartiin waa fahanteena filaya hadalkayga please caawiya qofka bilaadanka haddaad tahay qof naxariis badan maanteeto maalkan aad haysato ama adduun ama lacagtan haysato dada hadda waxaa arkaysaa sida maqaaxidaha oo kaleeto cunto dalbana cuntada waa ordaya cunto badan oo dalbanaya 2 jeer u taabana wax saas bas kadib waa la daadina yaa dambiga iskale qofka dalbada iskale dambiga kuba karna iyaga dambi malaha sababtoo ah qofkan cuntadaas asaga dalbade qofkaas cuntadaas asaga dalbade kuwa daadinayana ayagana isma dhahayaan qof dad baahana jiro daadinin qof laaziman dadka maqaayadaha joogo banaanadooda iyo jidadkooda waxaa fadhiya masaakiimo aan waxba haysan quud haysanin waa ordayaan waa daadinayaan wax walba qasaarada intaas maxaa waaye ma fiicna wax walba in lagu ciyaaro and then maanta cuntaa karsanaysaa waa ordaysaa cunto kugu filan haddaadan karsan karin iskaba dhaaf baa karsan la baahno dadka masaakiintoo baahan la dareen xanuunka la dareen baahida wax walba la dareen aysan ahayn cuntada markaad karsanaysid wax yaroo qiyaas karso isdhihin waxaan way yaraan doontaa iyo waxaas intaas isdhihin hadday yaraato waa karsan kartaa lixaad ilaaha kuu dhamaystira haddaad mar walba lixaad aad haysatana mar walba ilaah subxaana watacaala u mahad celi oo u mahadna waayo adduunyadan ilaah subxaana watacaala dadka aan dhamaystirnayn oo lixdooda dhamaystirnayn uma uusan waayin maxaan ku rahdaye gacmo uma uusan waayin indho uma uusan waayin maxaan ku rahdaye dhagala'aan uma uusan waayin dhago uma uusan waayin andeen lagu uma uusan waayin dadkaasito maxaan ku rahdaye maanta irsaaqad uma uusan waayin ilaah subxaana watacaala inuu irida uga soo geliyo balse idinka inaad maxaan ku rahdaye ku qoys qaadataan oo maxaan ku rahdaye mar walba ilaah subxaana watacaala u mahad celisaan ku qiirataan dartiisa allah subxaana watacaala mar walba oo dadkaas dhibaataysan sidaas ma fahanteen marka please walaalayaal aan caawina maamadaasito ha isdhihin maanta $500 haddaad hayso alla ilaa $500 kuma filan ha isdhihin meel unbay u buuxinaysaa cuntada maxaan ku rahdaa ciyaalka waa u buuxinaysaa oo cunto waa ku siisan kartaa way aruursan kartaa please walaalayaal caawiya maamadaasito waa iga codsi adigana maxaan ku rahdaye ha haysanin lacagtaasito maanteeto waayo wax aad arkaysid oo maxaan ku rahdaye sadaqo ku baxsan kartid hasdhiin maanteeto lacagtan ama ana u baahdaa lacagta aad bixisay in ka badan allah subxaana watacaala aadna kusoo gelinaya lacagta aad sadaqaysatay in ka badan allah subxaana watacaala aadna uu ku siinaya raashinka aad sadaqaysatid in ka badan allah subxaana watacaala irida kaaga soo gelinaya marka please walaalayaal aan caawina dadka masaakiinta haddii aad maanta ku aragto qof dhibaataysan ama hooy dhibaataysan jidka aad ku aragto $5 1 shilin ilaahumay ahaato
hasdhihin halkaa shil shanta shil maxay u taraysaa hasdhihin maxaa ku ogtahay inay maanta maxaa ku rahdaa xoogaa yar ay haysato shanta shil maanta intay u buuxinayso ay wax kusoo gadan karto waa maya waxba kama ogid marka biliis waxaan kaa codsanayaa qof maxaa ku rahdaye dhiban ama maxaa ku rahdaye caawinaad u baahan bixi maal dhahaas waxaa dhacday aniga waxaa maraya jidka bas ma 100 shilin sadaqinayay waxaana jidka fadhiyay dad dhahayo masaajida lagu dhisay muu dhahay mise kutaabaa lagu gadaa allahu aclam marka 100 shilin markaan u dhiibay waan eri ii duceey walaal dhagaalhiga hayaa inuu ilaah subxaana watacaala ii caafiyo qof kale jidka maraya wuxuu yiri waa beentooda xaaneeto waxay ku dhisayaan waxay u gadayaan ma lahan waa tuugsi oo keliya dadka masaakiinta ee dadkaana been u sheegayaan dabcan haddaadan waxba baxsan karin oodan sadaqaysan karin ama aadan rabin inaad wax sadaqaysatid sidaasaa dhihin walaal allah ku caawiyo oo keliya maxay ku jirtaa waa maysoma inaad qosashadooda ku jirtid sidoo dhahdid waa beentooda xaaneeta ayagaa lacagta rabo ma aan wax maxaan ku rahday la sadaqaynayo waxaasiita maahan inaad dhahdi waa qalad marka please aan caawino dadka masaakiimaha oo walaalahaaga ah mar walba garab istaag oo anigoo amal ku weyn sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dad qof naxariis badan aad tahay muuqaalkan daawo xoogaa markaa la yaabina xoogaa hergeb ay soo haay ma fahanteen xabeeba marka codkeyga ku jirto